ساعات رئيس أشيد وحوي ما أنت فرصة باجرته مسؤول توبيسا فرصة داس إلا وقفة إذا سعل ميسا يدرك وطن كان خبرته ولا إيه الصومالي سير قبل كان السعودية العربية وطن كان السعودية العربية الصومالية يبنتنا اللي سوى حرلها أو فرصة أن قالوا ما أنت جرت ما أنت حبنا لو قلي واحد عضو رؤيا iyo arintaas tala bixinteeda waa jeclaan lahayn waxa ka ogaad sidii Soomaaliya loogu xiri lahaa Saudi Arabia oo laga faa'iideysan lahaa fursadan ah anagu inaan nahay wadankii gadaal ka daafacay wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Abdullahi Maxamed Abdullahi waxa la yimaaday Saudi khudbadii madaxweynuhu jeediyay aad u furfurnay ayaa waxa ku jirtay kelmad ah Puntland waa nabad marka madaxweynaha waxaan su'aalayaa Puntland waa imisa gobol su'aashaas aan rabaa inaan madaxweynaha aad baan ugu mahadnaqayaa guusha uu ka soo hooyay maxaan ku raadaa arrintii la isku haystay 4.5 ka oo hadda uu u jeexay maxaan ku raadaa dalka Soomaaliya oo dhan dariiq cusub uu soo jeexay aad buu ugu mahadsan yahay su'aashaydu waxa weeyaan arrinta gaalkacyo dagaal waatii uu ka dhacay waatii maxaan ku raaddaa la kala fariistay arrinteedii iyada ahayd halkee bay ku dambeysay waan wada salaamay dhammaan dadka meesha isugu yimid ee reer Puntland iyo Soomaaliba waxaan leeyahay madaxweynaha Abdulwali iyo wasiirka Abdullaahi جامع صالح دمانتي وسلامتي نهرتا كان بالسؤال شيء ذكرين أن كين يسوي شيء ولا تقرب ما يجيب عيب نرجع الروض أنا هي جميل بلال الأخبار بالإله لا وحن سؤال شيء بأيتها أن هدينا بتقول يدي ما أنت بنت لاند إيميل في عن مريس الحمد لله رب العالمين reer Puntland ay isku xirmeen oo aynu ahayn dad ka soo jeeda maxaan yiraahdaa dadkii de hogaaminayay Soomaali ma sha Allah waxaan kaliya oo su'aalaya madaxweynaha arrinta nabadgelyada dibadda hayna kaga timaado ama gudaha hayna kaga soo baxday inay sugan tahay ما الله هو هين فليان وحن ليه عشت يا صوماليا بالعز والنعم وارفعي رسكي بين هيئة الأمم إلهي احفظ لنا صوماليا الوطن والسلام عليكم ورحمة الله أشكر شيخ محمد قدنيبا ويبيي وري هاي فصل بعد السعودية العربية كفى إذا سكرنا طبعا رتا دولته دم بينيهم marka hadday dalka leeyihiinna oo interest gaar ah uu jiro aan filayaan haduu jiro interest strategiyadeed ee dhulka Soomaaliya iyo Saudi Arabia waa fursad madaxda Soomaaliya u bannaan inay helaan farsamada uga faa'iideysan lahaayeen annaga hadda dagaalka ka socda Yemen iyagana daris bay la tahay annaga daris bay la tahay oo waxaan noo dhaxeeya waa biyo yar baa noo dhaxeeya dhibaatada runtii aad bay noo saameysay oo noo soo gaartay waato hadda walaalkayu Axmed Jamiil Bilaal uu ka hadlayay oo qaxooti badan iyo nabadgelyo xumo runtii na saameyn karta Puntland gaar ahaan sababtoo ah cidda ugu dhow xilka weeye ayaa jirta marka fursadaas dowladda federaalka Soomaaliyeed baa rabaa iyada hadda siyaasadda dowladda sovereign kii garanti ayada haysata inay uga faa'iideeyaan shacabka Soomaaliyeed kasta jooga waa muhiim annaguna dabcan hadda waxaan u nimid waa inaanu ka faa'iideysano aqoonta iyo dhaqaalaha Soomaaliya yaalla inay Puntland ka faa'iideysato oo kaabayaasheeda dhaqaalaha gaar ahaan wixii aanu ka awoodno annagu dowladdii ma ahayn federaalka ahayd
dowladda dhexe yani marka limitations badan baa jira oo waxyagu waa iska very limited inta aan gaari karno laakiin dabcan waa isku dayana inaan inta awoodayana ka faa'iidaysano waa run oo ilaa hadda Saudi Arabia dhowr laatan sano ayaa Soomaaliya duusan tahay waqti ay isku dayda Soomaaliya inay ka qabato waa jirtaa laakiin dabcan ma dhicin sidii wanaagsaneyd ee saxda ahayd in arrintaa loo wajaho waxaan rajeynaya marka iyadoo khibraddaa hore laga faa'iidaysanayo hadda haddii fursadu jirto in khaldaad kula loo sameeyaan loo sameyne fursaddaas si fiican looga faa'iidaysto waan rajeynayay cabdullaahi maxaa cabdil wuxuu weydiiyey su-aal ah waxaa dhulkii waa nabad mise gobol baa u taqaanaa puntland puntland hadda dastuuriyan waxaan maranaya waa 9 gobol wey sidaan u aqaanaa anugu laakiin su-aasha waxaan u fahmayaa inay tahay arrimo la xiriira dhulka puntland hore uga tirsanaa haddana gacanteeda aan ku jirin way wuxuu ka hadlayaan umalayna saasaan ugaas taasina waa su-aal kale arrin nabadgelyo maaha waa arrin siyaasadeed waa arrin ciidan waa arrimo u baahan si kale in loo wajaho marka iskuma xirra nabadgelyada markaan ka hadlayno iyo dhulka maqan waxa siyaasadda puntland ay tahay kaga aadan marka laakiin puntland waa 9 gobol dhulka ay sheegaysa sool sanaag iyo caynna puntland bay ka mid yihiin saasaan u aaminsanahay waa dastuuriyad ka qaartasan ku qoran arrinta gaalkacyo aad weydiisay axmed maxamed sheekh cusmaan weydiiyey gaalkacyo waxaa ka dhacay runtii dagaal nasiib darro ah oo annagu ka puntland aanan ku talagelin anu magaalada waa joogay 3 bilood baan magaalada waqti geliyey waxayna ahayd in magaaladaas isbedel nabadgelyo mid dhaqaale iyo mid bilicda magaalada dib looga soo dhamaya ahay sababtoo ah magaalada waa magaalo meel furan ay ku meel furan ay ku taallay muddana waxay magaalada iska dayacan bay ahayd dhanka nabadgelyada dayacan dhanka maamulka dayacan dhanka nabadgelyadana dayacan bay ahayd annagu marna dagaal sideedaba dabcan haddii dee lagu soo weeraro waad isdifaacaysaa laakiin puntland ayadu inay falkiso oo ay dagaal gaalxiye ka rido wax danahu puntland ugu jirtaa ma aysan jirin mana aanan rabin kumana aanan talagelin dagaalka haddii uu dhacayna dabcan waa heshiis dhabahoo dee la wada fadhiistay oo la dooday oo ma aysan jirin laakiin in magaalada xaaladeeda dib loogu soo celiyo magaaladu ay nabad noqoto ayaanu ka shaqaynay waana dhacday sababta haddii dagaal dhaco cid ka faa'iidaysaa ma jirto oo haddii hadda la yiraahdo reer magaalada laga saaro daadadu magaalada ma deganaanaysa shidadana waa soconaysaa weligeed meelo kalena saameynaysa marka annagu mar walbaaba nabadgelyada ayaanu ka hormaraynaa dagaalka insha allah dilaya jamiil wuxuu weydiiyey nabadgelyada wadanka gudaha iyo dawladdu ma sugan tahay ma lahba dee wax garanti oo garansiya ilaah baa bixin karaa annagu ma bixin karno laakiin waxaan ku dadaalaynaa inta tamartaya ah in dadka puntland ku nooli ee nabadda ku seexdaan halka kusoo toosaan intii annagu aan awoodo tamartayada dabcan cadow badan baa jira mid guda ku jira iyo mid daba jooga intaba oo laga yaaba inay nabadgelyo xumo iyo dhibaato puntland la jecel yihin ama la jeclaadaan laakiin annaga waxa u horeysa oo dawladdu xil ka saaran yahay waxaa weeye amniga weeye dadka shacbiga reer puntland inta haddii la awoodi waayo dabcan waxaa weeye dowladnimadeena waxbaa gaaraya waa dhaawacmaysa marka waa dadaalaynaa tabartayo laakiin 100% ma sugi kartaan de ma sugi karno taas ilaahay baa aan ka rajaynaynaa inuu lagu garab galo laakiin waa dadaalaynaa tabartayo insha allah dilahayna waa mahadsanti qaybsiga soomaaliya gaar ahaan baarlamaanku magac dhagay
anugu runtii marka meesha imid wax badan oo aan isku daynay baa jiray oo ahayd dad badanoo waxaa jira isagoo qoladaas kamid baan u malaynaya isagu laakiin dad badanoo waxaa jiray soomaali ah oo reer puntland ah oo runtii aan iska dhex arkaynin dowladnimada in marka gaar ahaan dadka layihahdo lahaybsooc oo soomaalidu ay fuquuqdo in dadkaasi ay cadaalad helaan dadka ugu lakala cadaaladdu waa relative laakiin dadka ugu hooseeya ugu dhibaatada badani dadkaasay ahaayeen dadkaasi marka in laga qaybgeliyo nidaamka dawliga inay aqoonta loogu dadaalo oo waxbarashada iyo caafimaadka iyo serviceka dawladdu meelaha degan yihiina si gaara loo eego si gaara iyaga wax loo taro sababtoo ah in waxaan is leeyahay iyaga waxa gaarka ah oo si gaara loo siiyahay cadaalad darro hor u jirtay bay saxaysaa mooyaan cadaalad darro maa waxaa la yihahda positive discrimination amase meelaha qaar loogu yaro affirmative action loo yaqaano oo ah inaad cadaalad darrada ku saxdo inaad cadaalad darro suubisa mararka qaarkood ayaa u eexato waxay la tahay cadaaladda ku jirto laftigeeda marka taa in badan baanu ka qabanay oo ku dadaalnay in dowladda maamulkeeda ka qayb galaan inay siyaasadda ka qayb galaan inay waxbarashada si gaara loo tixgeliyo in meelaha ay degan yihiin si gaara serviceka dowladda loo gaarsiiyo midda kale baarlamaanka puntland qabiilada puntland joogaay 80% oo ka maqanya marka oo wax ku saxmi kara oo keliya in la helo hadda dib inta dastuurka u furo yani baarlamaanka la siyaadiyo dadka magaca lagu soo daro yani waa wax waqti qaadanaya controversy iyo dhibaato badan abuuri kara laakiin waxaan sugi karaa waxaa weeye in 2009 markii la gaaro dadku ay si caadi ah oo maaragtay dimuqraatiga dadku isu soo doortaan markaas haddee qofkii baarlamaan galaya waa galayaa si dimuqraasi ku galayaa maxamed axmed aadan qasbiyaa lagu naanaysaa waxaan su-aashaydu ay toob ku noqonayaan su-aal nin igu horreeyey uu madaxweynaha weydiiyey oo ay waa imsa gobol puntland su-aashaasaa rabaa inaan yaro ballaariyo bayaabiyo puntland 9 gobol sida madaxweyne noo sheegay waa 9 gobol inteedii badnayna waa maqantay ama kala barkeeda sool iyo sanaag iyo cayn baa inaga maqan dagaal baa lagu qaatay 20 sanana hadday maqan yihiin 20kaas sano waxaa la xaawilayay in siyaasad lagu soo xoreeyo waana soo rogeli weyday in la soo xoreeyo siyaasad iyo hadal lagu soo gurageliyo su-aasheedu waxay tahay madaxweyne niman badan oo siyaasiyiina ayaa ka mid a dowladda puntland oo sooliya sanaag iyo xaymaasha niman badan oo kuwaa ka tirayeerna waxay la shaqeeyaan somalilan iyo khaatimo maxay ku dhacday in nimanka tirada yar ee somalilan la shaqeeya ama puntland ba sheeganayeen khaatimo sheeganayeen kaymaha jooga ay ka awood bataan kuwii faraha badnaa ee ka cilmiga badnaa ee ka maalka badnaa idinla jooga ma taageeraan idinka haysan sidee ay wax yihiin ba hadda noo bayaan asalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيب وإنجنير جامع حسن نور ومقعد الدوهار waxaan ka tirsanahay jaaliyadda ka timi damaam horiyo horaan waan salaamaynaa madaxweynaha iyo waftida wasiirka iyo waftida la socotay sharafta leh dabcan dee meel fog baan uga nimi inaanu la kulano madaxweynaha waan soo dhaweynaynaa madaxweynaha su-aashii aan qabay aan doonaya madaxweynaha inaan weydiiyo odayaal iga horreeya weydiiyey markaa su-aashan haddii lagaaga horreeyo la weydiiyo in lagu raftaa ma wanaagsanaa madaxweynaha waxaan keliya ku dhaafaya maadaama odayaal iga horreeyay su-aashii weydiiyeen anigu waxaan ka soo jeedaa gobolka sool waxaan ahay nin reer puntland oo ka soo jeeda gobolka sool madaxweyne markii aad kambeynka doorashada ku jirtay ee puntland ballan baad qaaday
ballantii aad qaaday iminka 27 maantis joogtid Puntland adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaaga iyo golahaaga wasiiradu waanu idinka fadhinaa marka insha Allah ku rafan maaye dee ballantii waanu idinka sugaynaa iminka 27 maantis baan dhaafay barakaatu magacaygu Cabdiweli Ismaaciil Cashir isku magac baan madaxweynaha horeyna hadalkii ka ftano markii Cabdiweli sheekh la doortay Cabdiweli magaciisa laguma khasaaro marka insha Allah taala inaan ugu xariirno rajayna madaxweynaha soo dhaweynayna aad iyo aad baan ku soo dhaweynayna su'aasha ragga hore weydiiyeen oo kale anaguna qabaan laftaydu marka anigu laftaydu goboladaas aan ka imid gobolka Xeeb ma ka imid waxaan sida hadda nimankaas sheegayaan arrin taakiid marka siyaasiyan iyo dhaqaaliyan iyo maxay ahayd iqtisaadiyan intaba madaxweyne iyo dawladaaduba 2 sano siyaasad hadda jirta marka intaasoo maxay ahayd magaalooyinka hadda maqan dee ma garanaysaa inay waxba gaarin baan anagu aragnaa marka waanu kaaga fadhinaa sidii ma garanaysaa looga tabadigelaa magaalooyinkaas aniga magacayga Shariif Saalax baan yidhahdaa madaxweynaha iyo wasiirka waxaan weydiinayaa su-aal la xiriirta badda Soomaaliya badda Soomaaliya markaynu nahno Puntland waxay leenahay badda Soomaaliya ugu dheer maalinta madaxweynaha Mareykanka su'aal in Soomaaliya weydiiyay wuxuu war kama hayo badda Soomaaliya wax ka dhacaya Puntland badeeni ugu dheeray khayraad badan baa ka buuxa laakiin sidii loogu talagalay kama faa'iideysano bedelkeedii waxaa galay burcad international oo khayraadkeeni qayb ku soo gasha badaan ilaalinaynaa qayb ku soo gasha anagu waxaan nahay ciidamo caalami ah oo hoos ku wata qolyo badda guranaya madaxweynaha iyo wasiirka marka waxaan weydiinayaa hawshaas idinku waqti intee leeg baa geliseen maxaad si ka qabateen maxaad si idinka qorshaysan بسم الله الرحمن الرحيم madaxweynaha waa salaamaya Puntland anigoo ah Cabdisataar Maxamuud Ciid oo ka soo jeedo kilarka shanaad su'aasha aan weydiinay madaxweynaha waxa weeye madaxweyne dawladda rugta ugu muhiimsan waxa weeye ciidamadu hadday ciidamo adag ay yihiin oo tayo leh oo dib aan ka fikiraynin ammaanka dalka way sugayaan markaan sidaa leeyahay ciidamada marka dagaalka ay ku dhintaan caruurtooda wax qorshe ood ugu talagasheen ma jiraa haddii uusan ka fikiraynin caruurtaada way dhibaatoonaysaa difaaca dalku waa adkaanayaa 100% marka wax qorshe oo aad ugu talagasheen dadka dagaalka ku dhimanaya difaacaya waddanka ehelkoodii ma jiraa weeye su-aashayda waana mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتهي وسؤال ونعكسن سؤال شوراكي محمد أحمد عادل ويودي يقصابسن صوصا هي عين قلت هل كنا مقبوا حتى بقولكي وسجاش ومغيه لكم مغرى سوريا سنة عين الله وضح يسته ودلوا ترى ومقام لكن سنة دابو بيجي يسوق إنوكي boqolkiiba 70 maqan yahay dasaas factor group sama arinta ku saabsan marka maxaa qorshaha oo siyaasadeed ay ka leedahay Puntland anagu ma oranayno dadka Puntland ka soo jeeda soo saganaga cayn xil aan aniga iyo inta kale loo aruurinayso gobolada kale aan ka saareen ayaa gaar u soo tuujay waa ku daaweeyay qofka mas'uulka ah oo Puntland joogaana isku si ayaa mas'uuliyad uga saaran tahay Puntland ama nabadgelyadeeda ama horumarkeeda ama siyaasadeeda isku wada waajib waana isku xuquuq marka ma oranayo mas'uuliyad gaar ah saaran aniga la saaray dhulkaas maxaa aad ka leedihiin waxaad anu meeshan uga hadlaya maaha oo qowligaa laakiin dabcan Puntland waajib baa ka saaran dhulkaas nabadgelyadiisa iyo
iyo soo celintiisa intaba waajibaadkeedana insha allahu way ka soo bixi doontaa hadii la yidhaahdo arrinta ku saabsan injineer jaamac weydiiyey ballan baan qaaduu yidhi ballantii oragayna qaaday welina waa ii taaganta insha allah cabdullaahi ismaaciil cajab dabcan isagu talo iyo odayaashii hore inuu ishugaas weli taagan yahay dadka dharta u taagan tahay ayaan filayaan oo uu leeyahay waa sugaynaa weli in arrintaa laga jawaabo shiro saalax wuxuu aada uga hadlay badda puntland waa run badda soomaaliya u dheer puntland baa iskale ama ha noqoto rarsiga ama ha noqoto indian oceanka shidooyin badan oo ka jirana waa jiraan badda qaarkood hadda waa iska baabeen oo sidii tii bayrasiga ahayd oo la xiriirtay bulcadbadeedii shidada ka abuurtay muddo hadda taasi tii aan naqaana bulcadbadeeda aan naqaan kastoo bulcadbadeedu ay tiro badan tahay midda keliya oo la xusahay gaalada xustahay waxaa weeye midaan wilasheeda yaroo qorya haysto oo maraakiibta afduuba taas bishii may waxaa maraya 2012 ayaa in sanadkii u dambeeyay ka dhacay puntland laakiin bulcadbadeedka kale ayaa ka jirta dalka oo haddee khayraadkan annagu aan leenahayo sida sharci darrada ah loo maamulanayo waa shida jirta weeye annagu xukuumad ahaan aada baan isugu dayna wax ka qabano ama ha noqoto adkaynta shuruucda kalluumaysiga oo hadda golaha wasiirada la baasgareeyey baarlamaanka la baasgareeyey haddana ka hawlgalay puntland ama ha noqoto in la tayeeyo ciidankii badda puntland BNBF-ta weli waxbaa naga dhiman dooyo fiican waa u keena ilaa 12 dooyood oo wanaagsan laakiin haddana waxay u baahan yihiin mothershibs iyo waxyaabo kale oo ay u baahan yihiin baa jira iyana weli aanan helin waana ku tala jira inaan helno waan aaminsanahay runtii khayraadka keliya oo soomaaliya iyo puntland isku hadlay kartahay waa khayraadka badda weyn xoolahan soomaaliya oo maalinba abaartu imaanayso oo maalinba xoolaha ay tegayaan oo dadkii reer magaalka noqonayaan iskuma hadlay karo marka runtii khayraadka runta aan leenahay waa badda weeye marka inaan ku dadaalno inaan ceshano ku mintidno ku dagaalno waa waajib weeye waa run in hadda annaga naga taageerta oo oranaysa khayraadkiina ceshada oo idinku taageernayna ma jirto hadii annagu aanan u qalab qaadan waana isku dayana waa ma badbaadaya khayraadkaasi marka waa wadnaa hawsha iyada insha allahu waan rajeynayaa in wax badan iska bedelaan badda puntland hadii la yidhaahdo cabdisataar waa ku mahadsan yahay su-aal wanaagsan wey runtii oo ah qofka dhimanaya oo askarta u dhimanaysa dalka alaa qofka bani aadanka ahi waxa ugu qaalisan oo huri karaahay waxaa weeye waa nafsiisa weeye marka qofkaas askariga ah oo dhintay in laga warqabo caruurtiisa wax badan dowladda puntland awoodaha ay kartahay ma jirto xuquuqbaa jirta go-an oo la siiyo qofka askariga ahay dhintay reerkiisa dabcan haddii mushaahar la helana mushaharkaasi ilmahaas hoor u qaadan jireenna dee lama goyo wa ay qaataan oo sida isaga oo nool ayaa ilmuhu mushaharka u qaataan dhaqaalo yar oo iska kooban oo aan badnaynna waa jiraayo qofkii dhinta reerkiisa la siiyo marka intaasunba hadda puntland awoodi kartaa intaasna waa suubinaa laakiin qofkaa dhintay wax abaalahoo ilaahada ogaan gudi kara oo maaragtay runtii yani ilmahaasi aabahood iyo noloshiisii iyo reerkaasi wax u bedeli kara hina ay jiraan mana awoodno inaanu samayno wax bedeli kara laakiin waxa yarkaa oo limitirka awoodda aan leenahay waa isku dayna insha allah waa mahadsanyihin